ninka aroosaya gabadha waa in la iska hubiyaa in uu hubkiisu dhacayo oo uu buntuq rasaasta ku dhan tahay uu sito. kaaga sii darane waxaad tijaabinaysa oo habeen ka mid ah habeennada wiilkaa la soo seexanaysa gabadha la guursan doono eeddadeed. waa mid ka mid ah 6 dhaqan oo cajiib ah amaba la yaab leh oo meelo ka mid ah Afrika dadku ay isku guursadaan. 1. waddanka Uganda gaar ahaanna beesha lagu magacaabo Bayankole waxaa caado u ah in marka uu wiilku uu ka helo amaba soo doono gabadh si loogu daro ninka marka hore la iska hubiyo inta aanu nikaaxu dhicin. waa duni ummad kasta leedahay dhaqan kaa yaabinaya inanta eeddadeed ayaa wiilka la barayaa si ay wiilka tijaabo u geliso. ansixinta raganimada waxaa laga sugayaa islaanta eeddada u ah gabadha. kolka ayuu wiilku la seexanayaa islaanta hal habeen. subaxii ayaa dadku xaflad gaaban iyo quraac caaqibo leh ay ku kulmayaan. waxa laga wardhowrayaana waa habarta. waxaa wadna kurkur iyo talow maxaa soo yeeri doona qabar reeraha wiil ka dhalay. hoosta ayay iska leeyihiin armuu meesha nagu ceebeeyaa oo gogasha naga hagaajin waayaa halkaasna gabadha aanu ku seegnaa. haddii la arko islaantii oo faraxsan oo suulka soo taagaysa meesha oo dhan ayaa waxaa qabsanaya dabaaldeg, jaanta, jiibta iyo farxadda, taasi oo ka dhigan in wiilku nin rageed yahay gabadhuna ay nin rageed hantiday. 2. beesha Zulu ee South Africana gabadha aroosadda ah amaba lala aqalgeli doono ayaa xaflad iyada gaar u ah samaysanaysa. xafladda waxaa lagu magacaabaa xafladdii lugataaga. waa xaflad ciyaar la isugu baxayo iyada oo xagga hore la soo fariisinaya islaanta dhashay caruusadda. malxiisado aad u yaqaana ciyaarta ayaa caawinaya gabadha. markaa kadib gabadha caruusadda ah ayaa lug kor u taagaysa si ay u caddayso in ay gabar tahay. markaa ayay hooyada gabadha dhashay madaxa ruxaysaa oo ay leedahay allaylehe waa igu bannaan tahay oo gabar hubkeeda u dhan yahay ayaan dhalay. alalaas iyo farxad ayaa labada dhinac ee wiilka iyo gabadha isqabsanaya iyada oo markaasi si degdeg ah la isugu diyaarinayo aqalgalkooda. 3. meelo ka mida Tanzaniyana ka hor xafladda aqalgalka oo socon doonta muddo 7 maalmood ah waxaa dhacda caado la yaab leh. wiilka iyo gabadha ayaa guri la wada seexinayaa. sariirta hoosteeda ayaa waxaa ku dhuumanaya oo isku qarinaya qof ka tirsan qaraabada wiilka. wax caawa oo dhan la wada galgasho. kolka uu waagu uu baryo ninkii sariirta hoosteeda caawa oo dhan ku jiray ayaa go'i sariirta ka diiranaya oo bannaanka ula baxaya. haddii go'a cad ee ay wiilka iyo gabadhu ay ku seexdeen laga waayo dhiig wax allaale wixii kharash ku baxay gabadhaasi waa celis iyo wax kama jiraan. halkaasi ayaana lagu kala tegayaa. caadadan waxaa ka mid ah inaan wiilka iyo gabadhu is arkin ilaa uu aroosku soo dhowaado kadibna gabadha ayaa imtixaan maraysa. 4. liibiyana arooska ayaa sida caadada ah socda muddo 7 maalmood ah laakiin 7 ninku ma wada arki doono gabadha aroosadda ah. gabadha keligeed ayaa loo bilaabayaa xaflado waaweyn oo ay ka soo qaybgalayaan qaraabada gabadha iyo weliba asxaabteeda. waa xaflad soconaysa muddo 4 habeen iyo 4 maalmood ah. damaashaadka iyo kharashka baxaya oo dhan waxaa dhiibaya ninka. hadda ogow ninkii shilin kuma harin oo gabar uusan weli arkin ayaa xaflado meel walba looga samaynaya iyada oo keligeed ah. habeenka 4aad ayaa loo keenayaa iyada oo gawaari fara badan la isdaba dhigay, hoonka iyo nalalka aan la kala joojinayn. sidaas ayuu kula aqalgalayaa isaga oo ay u hartay 3 habeen oo qura oo aqalgalka ah. quraan akhris iyo duco ayaa loo samaynayaa reerka cusub. 5. dalka Itoobiyana meelo ka mid ah arooska waxaa ku baxaya kharash fara badan. ninka ayaa waxaas oo dhan dhiibaya. meelo ka mid ah waddanka waxaa la qabanayaa xafladdii arooska oo ah mid aad u weyn, hanti fara badanna lagu burburiyey. laakiin wax kasta sidaasi macaan uma aha oo waa in meesha maryo dhiig leh lagu kala furtaa. dadkii munaasabadda ka soo qaybgalay ayaa markhaati la gashanaya. qol ka mid ah hoolka arooska uu ka socdo ayaa wiilka iyo gabadha la isugu soo xaraynayaa si ay wakhti ay u qaataan. qaraabada wiilka ayaa loo dirayaa qolka ay ku jiraan wiilka iyo gabadhu. markaa ayaa laga soo qaadayaa go'ii sariirta oo bannaanka la keenaya isaga oo kor loo laadlaadinayo. haddii go'a sariirta oo ah mid aad u cad laga waayo dhiig, arooskii halka ayuu ku burburayaa. lacagtii wiilka kaga baxdayna waa celis oo reerka gabadha dhalay ayaa ilaahay madaxooda ka shubay. 6. gogosha markhaatiga leh intaa oo keliya kuma koobna ee dalka Tunisia. galgalashada sariirta waxaa goobjoog ka noqonaya dadkii la casumay oo dhan oo bannaanka kugu sugaya. haddii aad maqli jirtay aroos laguma raago lagamana raago, hadda ogow Tunisia in bannaanka lagugu sugayo.
haddii wiilka qolka jiifka uu kala soo bixi waayo shumac weyn oo dhalaalaya markaa gabadhu gabar ma ahayn. haddiise la arko isaga oo sita shumac dhalaalaya meesha oo dhan ayaa farxad iyo qoobka ciyaarku isqabsanaya oo loo dabaaldegaya. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay pageka Bulqaas Media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana ay asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga bartaan. wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.